xaflad lagu soo bandhigay buug cusub oo ku saabsan Soomaalida degan wadankan Ingiriiska ayaa waxay ka dhacday gudaha magaalada London. xafladan oo ay soo qaban qaabiyeen Shira Foundation iyo Atfam ayaa waxaa ka soo qayb galay dad aad u fara badan. dadkaasi oo ay ka kala socdeen hay'ado kala duwan oo ka shaqeeya wadankan Ingiriiska. si kastaba ha ahaatee waxaa goobtaasi ka hadlay hay'adda Shira Foundation iyo Atfam ayagoo buugaasi ay qoreen u soo bandhigeen ummadii ka soo qayb gashay shirkaas. buugan oo ku saabsan ummadda Soomaaliyeed iyo halka ay maanta ku sugan yihiin. haddaba waa kan gudoomiyaha ururka Shira Foundation Cabdi Shire oo siiyay wareysi qaas u ah telefishinka Universal asagoo ka hadlayay sababta ku qasabtay inay maanta ummadda Soomaaliyeed u soo bandhigaan buugani. nabiilow sidaad arkaysaba shirku wuxuu ku saabsanaa soo bandhigid daraasad dheer oo ay wada sameeyeen Shira Foundation iyo Atfam oo ah urur dalkan Ingiriiska u qaabilsan jahaynta muqaadaraadka. Shira Foundation sida aad baryahan la socotay waxay ka mid tahay ururada Soomaaliyeed ee dhawaan u kacay inay isku dayaan inay dalkan Ingiriiska ummadda Soomaaliyeed ee dhibaatadu hadda ku habsatay mar horena ku habsatay inay wax taraan. markaan ku soo ururiyo bari dhaweyd baa islaan aan iri micnaha ururka Shira Foundation u timid in wax loogu qabto ayaa tiri waa maatantii markaasay kelmad Brambro ay tiri. Bramburkii wuxuu ahaa Shira Foundation waxa loo taagay tiirka loogu muday inay taageerto bulsho taageero tabaalashano meesha tagtaba taakulayn rabtee. marka islaanta Bramburkeeda wax badan baa iga raacay waxaanan u qaatay optimiska ama himilada uu higsanayo ururkan Shira Foundation. ururkan micnaha Shira Foundation iyo Atfam ururkan la yiraahdo waxay soo saareen buugan isaga. buugan wuxuu ka hadlayaa barnaamijyo aad iyo aad u fara badan. waxa uu micnaha taabanaya waxyaabo fara badan. waxa uu tirakoob ku sameynaya micnaha community-yada Soomaaliyeed ee ka jira dalkan Ingiriiska ilaa hadda inta micnaha qalinku ku dhacay ama aanu register gareeyna waxa weeye 180 iyo hodhodho ay micnaha gaarayaan. ururadaasna hadde micnaha waa ku kala baahsan yihiin ma ay laha dalad guud oo micnaha ay hoos yimaadaan. urur walba micnaha iskii ayuu u taagan yahay. marka aad iyo aad ayuu micnaha ururku Shira Foundation oo ku soo biiray isagoo ururada jira balse aan isleenahay wax ka duwan ayuu la imaan doonaa maadaama lagu sameeyay xaalad cusub maadaama dhibaato cusub ay soo wajahday Soomaalida loo sameeyay. waxaan isleenahay wax badan ayuu ku soo biirin doonaa. ma ahan inuu leeyahay ururadii kale wax ma qabanay annaga wax qabanayna. waxa weeye micnaha in uu wada shaqayn la sameeyo community-yadan ka jira dalkan Ingiriiska ayuu u kacay. waxaanan isleenahay waxaad ku salayn doontaan waa aragnimada iyo aqoonta aad u leediin. sidoo kale waxaa xafladaasi lagu soo bandhigay heeso cusub oo ku luqadeynayay Jooqle. heestaasi oo ereyadiisina uu qoray Abwaan Xuseen Shire. heestiina waa tane nala dhageysta. sidoo kale waxaa goobtaasi lagu soo bandhigay gabayo kala duwan oo waliba lagu turjumayay luqadda Ingiriiska. waraaqaha la soo diro markii wasaaradda Ingiriiska aqoon u ahaa dhammaan qofrolo u dhigay rokaali jooga dhaxayso marka mudiyas barintu u tagay dadka inuu sii faalo marka wixii la yiraahdo wuxuu soo diiray qaarad bukasha wixii la yiraahdo ay baa waxa lagu soo qaadan meel ku rida hadda markii soo dhaado u fiiriya حرفها قوارعي بس ليه أرضا هو قاعد مركي دمه حتى وطن أنا كنت شنو قوارع
please هدي ورثة هو كان ورانا دي أخير وأبو فيرنا يا يقول لك هذا هو ده ما يمر وهذا ما بحاجة مرة في له زيفو ما واحد بطور موسى وقال عليه أو ضد قوات زيفو وقال استنى إني هو وقال ما تقبلي أنا كان أصلي حاشدي لكم قاس هاي أبليكيشن أدي قدروا سوق أخبار تيسا أروح تهدي بوسوي إيه تصوتونه أو يكون أكتر مركا هذا غير ويدو إلا واحد يشاهد أنا هاي المكوباي أنا فوتشان الإنجليز في لما أمانيني أي بليز تمر هذا الحرب وهي نبيل حسن نور تلفزيون كيونيفرسال عاصمة ودن كإنجليز كمقالة لندن.